munaasabad lagu xusay maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed ee 15 May oo ay soo abaabuleen urur dhalinyaro oo lagu magacaabo ururka jiilka cusub ayaa waxa ka soo qayb galay aqoon-yahano iyo arday jaamacadaha ka dhigata dalka Suudaan. Munaasabadan oo ahayd maalintii la aasaasay ururkii dhalinyarada xornimo-doonka Israel ayaa waxa inta badan looga sheekeeyay taariikhdii aasaasashii ururkaasi oo 13 qof ahaa. munaasabadan oo ka dhaceysay hool ku yaala magaalada Khartoum ee dalka Suudaan ayaa waxa sidoo kale ka soo qayb galay culimada Soomaaliyeed oo kamid ahaa Sheekh Ahmed Qudubi aqoon-yahano gale. Sheekh Ahmed Qudubi oo halkaas khudbad ka jeediyay ayaa inta badan ka hadlay sida calankeena Soomaaliya dadkii hore ee ugu horeen dhigooda ayna kamid ahaayeen ururkii SYL. Sheekh oo halkaas ka hadlayna waxa hadaladiisa kamid ahaa yaashii SYL ka mid ahaan jiray oo leeyahay علي شدو inaad maqashaan waa dhici kartaa al-aajal biyadillah laakiin odayga isagoo kursiga ku fadhiyo yaa waxa la yiri calamkii Soomaalida ee shangeesoodka ahaa shabaab kismaayo ku gubay mid madowna way sureen وعلي kursigii uu ku fadhiyay uu ka dhacay naftiina way ka maqnay naxdintuu naxay marka fiir bidaayada iyo nihaayada taa marka waa laba khawaatir idinku waxaad rabtaan ka faa'iideysta ama muxuu ka faa'iideysan bahadaad rabtaan Dr. Hussein Bashir oo kamid ah asagana aqoon-yahanada Soomaaliyeed ee halkaas ka hadashay ayaa sheegay in maanta loo baahan yahay in loo istaago sidii loo soo celin lahaa sharaftii dawladnimada ee Soomaaliya lahayd. soo halkaasina kalma ka jeediyo waxa eraydiisa kamid ahaa جاهيك الدول مدرسة سوريا الشيخ محاور ما وككبر ونوش إلى كل سيدة بقول سيدة أفضل تفاريق كونفرنس لا ما تسقط مر لندن نركب مر نيروبي مر أديس ساسا للو يريبيا ما هو الحل؟ ما هو الحل؟ حل وسيسهلين حل وحويا إلى استاتبنا أحد الوسطية أضيس المنافق لنا يجامل كاره كيف وحاول قفك كوكو قبك هذا حاصل له حاصل من التي يحصل بالشرف أطلقه بالصلاح يقلب أطلقه هذا صاحب صومالي وأنه صاحب على العرب منهم إن يمكن تسكيل أفتان أن تركز بشريرين الضرباء كوفا oo aad maqasho tiraahdo oo hadaad iigafto anuu ku gafmaayo wax badan oo wanaag baan dhaxmay tulqaadna la nimaado isticmaalka meelaha uu la soo galo waxa uu weyn wax kala ma aha waxa weeyaan walaal waxa laga waayay idfaa billadhi ahsan fa ila alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamid la fi'su'a waxaan qiimo lahayn واتجاه وصل كبير أينو كبيرنا temperature كيلو وجوكا بقول ديجري سنتيجري تبقى بالوضع شيطان كيدي ووكين واحد كيمانه أيه مسؤولنا فكم ugu dambeyntiina munaasabadan ayaa waxay ku soo gabagabowday jawi aad u wanaagsan iyadoo aad loogu farxayna qaabka ay soo aawreen ururkaasi 69 sano ayaa ka soo wareegtay markii la aasaasay ururka SYL ee magaalada Muqdisho lagu aasaasay iyadoo ay aasaasashii dadkaasina ay imika aysan ka noolin hase yeeshee habeenkan munaasabadan lagu maamuusayo soo abaabuleen ururka jiilka cusub ee Soomaalida ay dalka Suudaan ku leeyihiin ayaa waxay u soo gabagabowday si aad loogu mahadnaqay sameynaantaana aad loogu talagalay waxayna ka hadalkan mas'uuliyiin aad far badan manaha markii ugu horeysay oo ay Soomaali dalka Suudaan ku noolay ay xustaan maalintan 15 May Fiido Maxamuud Fiido TV-ga qaranka SNTV Al Khartoum Suudaan